Allah u naxariistay waxaa magaalada London ku geeriyooday fanaan laxamiiste abwaan Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeedi oo loo yaqaan boqorka cuudka. Abwaanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la xanuunsanayay cudurka coronavirus oo farabadan ku haya guud ahaan caalamka. Xudeedi waxa uu dhashay sanadka markuu ahaa 1928 waxa uu jiray 92 sano, isagoo ku dhawaad qarniga ahaa tiir aan liicin oo uu leeyahay fanka Soomaaliyeed. Waxa uuna aad caan ugu ahaa tumida muusiga gaar ahaan cuudka ama kabanka. Waxa uu ku dhashay magaalada Berbera. Waxa uu dhalinyarnimadiisii ku soo qaatay magaalada Cadan ee dalka Yemen ka hor inta uusan ku soo laaban Soomaaliya. Waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay aas-aasaha fanka casriga ah ee Soomaalida. Abwaan Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeedi ayaa fanka soo bilaabay isagoo da'diisu ay tahay 18 sano, balse aad waxa uu soo shacbaxay markii ay da'diisu ahayd 20 jir. Wareysi uu siiyay BBC-da sanadkii 2018 ayuu Xudeedi ku sheegay in fanka uu ku soo bilaabay magaalada Cadan ee dalka Yemen oo uu tartan uga qayb galay. Abwaanka ayaa sidoo kale sheegay in uu lahaa macallimiin badan markii uu fanka ku soo biirayayna gacan qabtay. Abwaan Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeedi ayaa sheegay in kontomeeyadii uu magaalada Cadan kaga qayb galay tartan dhanka fanka ah oo ay ka qayb galayeen fanaaniin ka soo kala jeeda dalal kala gedisan, taasi oo uu sheegay in uu guul ka soo hooyay. Xudeedi ayaa Yemen ka soo laabtay sanadka markuu ahaa 1960kii, halkaas oo uu fanka ka sii waday. Allah u naxariistay abwaan Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeedi waxa uu sheegay in tumida kabanka uu ku dhiirigeliyay abwaankii weynaa ee Cabdullaahi Qorshe. Allah u naxariistay Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeedi kuma eka oo kaliya tumida kabanka, balse waxa uu sameeyay heeso badan oo wadani iyo jacayl isugu jira. Heesaha wadaniga ah ee uu sameeyay waxaa ka mid ahaa heesta la yiraahdo Dhalad oo ah hees uu calanka u qaaday markii xurriyadda ay qaateen gobolada waqooyi. Dhanka kale, heesaha jacaylka Xudeedi waxa uu sameeyay heeso badan. Waxaa sida uu sheegay ugu caansan heesta Raaxeeye. Abwaanka ayaa sidoo kale waxa uu soo saaray dad badan oo caan ah isla markaana tuma kabanka ama cuudka, maadaama uu isagu caan ku ahaa sida loo tumo.